oday waxa jooga wiilkii reer ka dhibay ee maalin walba dilay dadka dila diya ka dhiiba wilina raba in ciidanka loo qoro xildhibaan kasta ugu dhagan xildhibaanka wiilkayga soo qor xildhibaanka taliska booliiska u imaanay mooga qofka uu yahay inuu qof dilay mooga oday dhaqameed kasta waa og yahay inuu qof hore soo dilay diya ka soo dhiibay waa og yahay wuxuu wadana waa gacan ku dhiig loo xildhibaanka kala dab u daay marka dhow bulshada loo qoro bulshada loo horgeeyo ninta kana qaw waa qoriga amaankiis ma wadaynayo xabadana way ku jirtaa markaas qof walba intuu ka baqaayo xataa naftiisa badbaasad leh asagii baqaayo dad sii dila meelad madaxeedi tahay wajahad laskama dhigeen meelad madaxeedi tahay wajahad laskama dhigeen hadaadan nidaami karin inaad adigii naf iyo maalkiina waardiyeysho lagu soo diray inaad disho wax laga aqbali kara maaha wax sharcigu ogol yahay uu banaynayana maaha marka sidee uga bixi karnaa in qof iska dilo oo iska baxo ama waa fakaday liiraado ama waa la waayay liiraado waxaan uga bixi karnaa ummadda Soomaaliyeed waxaan rabnaa odayaasha dhaqanka ee reer kasta ee degan magaalo ama goob jooga waxay sameeyeen in qofkii eedaysanaha ahaa ama gacan ku dhiigliha ahaa oo odayaal dhaqameedii asagiyoon lahaynin oo baxsaday inay odayaal dhaqameed inta soo baxay yimaadaan reerkii dhibanaha intii yimaadaan yiraahdaan anaga wiilkeena ahaa dhibkan anaga geysanay in idin kala xaalna diyaar u nahay war maxaa laga la xaala oo qofka dilayba ma wadid oo ma aada keenin waa maqan yahay leedahay laga yaabo inaad meel ku ogtahay markaas aad waxa leedahay qof dhibana oo tacsiyo taala leedahay qofkii anaga dilnay naga la xaala muwaadin kasto dusheeda joogo Soomaaliya waxaan u sheegayaa kana codsanaya hadayba kugu dhacdo dhib noocaas walaalay ha fududaysanin nafta bini aadanka la dilay la gooyay bariye ku qabanaysa adeer walaal awoowe waxaan ku leenahay waxa jira odayaal dhaqameedii u istaagay in war oday maantay qof la dilay loo raadina bas qof la dilay mid wax soo dilay raadinaya oo inuu ku dhax noolaada raadinaya yaan ummadda Soomaaliyeed naftooda lagu halaagin war nin dilo in la dilo ay shariicadu ogoshahay waxa qofka diya laga bixin karaa markii uu kasdhaaf ku dilo ama uu kama ku dilo labadaba maahan kaas waay qori aka oo xabad jirto waa kama oo ku dhinta cid ka yeelaysa ma jirto qori inta xabad la ridin wuxuu soo maraa 12 ficil 12 ka ficil ee uu qorigaas uu soo maro ayaan hilmaamay oo xabadii riday qof ay iiga fakatay cidi ka yeelimayso maxkamadna aqrisamayso walaal waxa laga rabaa hadii aad qoriga u qaaday inaad ummadda ku difaacdo ee aad u qaadin inaad ummadda ku wax yeesho aad ku dhibaatayso walaal qoriga lagu dhiibay oo qaranka ku dhiibay xabadda dhuuntiisa jirta waad og tahay inay qof tisho haday baxsato ha ku taagin muwaadinka hadaad ku taagto isku daydin ha ku taagin cid ku ogol ma leh cid ku fasaxdeen ma leh booliiska Soomaaliyeedna ma ogola sharciga Soomaaliyeedna ma ogola sharciga islaamkana ma ogola qof bini'aadna in la dilo walaal nafdisha waa ayada u kaligeed loomana ogola inuu wax dilo dhibka wuxuu ka taagan yahay booliiska Soomaaliyeed ama ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed markii la qoraayo waxa jiri jirtay shuruuc iyo heer iyo imtixaan loo maraa jirtay wixii dhan waxa laaday 4.5 oo aan niri odayaasheena dhaqanka ha lagu soo xulo waa midkii aad keentay aabo adeer waa midkii adiga aad soo qortay midkii ummadda dhibaataynay waxa laga rabaa nin 9 bilood tababarayay tababar soo qaatay oo bulshada sida uu ilaalin lahaa loo soo tababaray markuu halkan yimaado nin qaarkood waxa la keenaa nin gobol qof ku soo dilay oo dakana qaba ciidanka loo soo qoraa yaa u qoraay marka oday dhaqameed markii loo diido liiraada kan gacan ku dhiglo ay gabi ciidan xago media intii istaago leeyahay taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed cadaalad daray dadka u qoraan wiilkaygan geeyay waa qori waay war ilaahay aan ka cabsano dhibka Soomaaliya wax ku haaya ee hadii dhib la sheego dhibka soo bandhigay waa oday dhaqameed waxaan leeyahay adeer dhaqanka kuwa ilaalinaya tiin kuwa nabadda la rabay inay dhaliyaan tiin war nabadoona isku sheegaysiin oday dhaqameed isku sheegaysiin walaalayaal ka daaya ummadda gacan ku dhiiglaha aad u doodaysaan oo leediin diyan bixinayna gacan ku dhiigle qofki qof dila waa dil haduu shil ahayn qofka haduu gaari fariin gooste ku dhinta sabab uu yeelan kara hadii uu guri ku dimo sabab uu yeelan kara hadii baawur dardar sabab uu yeelan kara laakiin shakhsi intii qori qaatay qof bini'aadna soo dilay inaad diyadiisa bixiso maxaa kugu qasba ilaahay buu wuxuu yiraahdaa nafsi binafsi marka odayaasha dhaqanka iyo bulshada Soomaaliyeed goobay degan tahayba maanta nabadda iyo waxaan raadinayna maalintii hore ma ahan ma joogno 30 sano ka hor maanta waxayna joognaa xaalad xun ku jirnaa xaaladda xun waxa ugu bixi karnaa in ummadda Soomaaliyeed odayaal dhaqankeedii bulshadeedii iyo siyaasiyiinteedii isku raacaan shakhsi dilo in la dilo shakhsi dilo in la dilo haduu og yahay shakhsi dilo in la dilaya wallahi igu billahi tallahi nabadan helayna qof dili karaana ma jiro qofka haduu qof dilo war xeerkii xilligii diya la kala qaada jiray
la kala joogi jiray waxay ahayd kama in la isku dilo shil lagu dhinto gaarigayga break ghost qof aan dilay garowshiya leeyahay waxaan wato waa gaari waliba laga yaabay inuu muwaadinka asaga saadkii aan ku socday soo galay laakiin shakhsi intii qori qaatay oo qasnad ku soo xirtay rasaas u raadsaday soo gatay ku xirtay qasnadii qoriga xabadii raaciyay amaankii furtay qof ku taagay intaasoo dhan nin maray kama lama dhihi karo walaal waxa idin ka codsanaa bulshada Soomaaliyeed goob kasto ay joog ciidanka booliiska Soomaaliyeed ammaan ma sugaan muwaadinkii nafninkii gooya asaga shaqo ku leh looma dirin askariga taliska booliiska Soomaaliyeed uma dirin inuu qof dilo laakiin qof walba backgroundkiisa damba fiiriya hadii adii hooyada ay kugu soo rafaaday oo tacliin ilaa heer dugsi sare kugu qasbaysay aad soo baranaysay oday waxa jooga wiilkii reer ka dhibay ee maalin walba dila dadka dila diya ka dhiiba wilina raba in ciidanka loo qoro xildhibaanka futada ugu dhagan xildhibaanna wiilkayga soo qor xildhibaanka taliska booliiska u imaanaa ma oga qofkan wuxuu yahay inuu qof dilay ma oga oday dhaqameedka waa og yahay inuu qof hore u soo dilay diya ka soo dhiibay waa og yahay wuxuu wadana waa gacan ku dhiig loo xildhibaanka kala daba ordaayo markii dhow bulshada loo qoro bulshada la horgeeyo oo askari la horgeeyo nin dakana qabo waa qoriga ammaankiisa ma badaynaayay xabadina way ku jirtaa markaas qof walba intuu ka baqaayo xitaa naftiisa badbaasas leeyahay asagii baqaayo dad sii dila walaalayaal waxaan leenahay codsiga aan bulshada Soomaaliyeed u jeedinaa wuxuu yahay walaale qof dilay xiligi diya la kala qaadanay ma joognay si umada ay nabad u noqoto oo cadaalad loo helo qofkii qof dila in la dilo waa qasab waa odayaal dhaqameedyada maxaa u dambeeyaa leeyahay midkii la sii siday wardaraad nin darowala nin dilay shaatigan hadaan wato qof dilo macnaha shaatiga igama difaacayo dambiga aan galay ilaahay agtiisna iga difaaci maayo adduunyada iga difaaci maayo shaatigan hadaan wato waa ka sii culus tahay waxay uga sii culus tahay waxaan ahay ninkii bulshada loo tababaray inuu ilaaliyo badbaadiyo ammaankeeda dhowro xafido bulshadana u heeliya laakiin layma tababarin inaan bulshada dhibaateeyo taa bil cagsi marka hadii shaatigan aa wato dambiga uu ka sii badana war ninkii askari ah ee laami taagan qof kasta ha ahaado ee loo amro inuu bulshada u shaqeeyo walaal bulshada laguma amrin inaad disho hadaa dishana adaa dambigeeda qaadanahay naftaadi waa badbaadsan kartaa waa cabsana in lay dilaa ka baqa macnaheedu wuxuu yahay inaan dad dilan banaysana cid ka yeelaysa ma jirto shakhsi ka aqbalayana ma jiro waxaan kaloo la dardaarmayaa odayaasha dhaqanka wayna wada dhaleen diinteena weeyaan dadka dhaqanka noo hogaamiya ayaga waay laakiin dhaqankii yoosan idin la galin inaad ka macaashtaan qof dilay ama qof soo dilay maanta oo dhan diya raadis ha u taagnaanina mar diyadii idinku bixisaan iyo mar la idin ka bixiyo qof dilay diya laga bixin aakhirana ku ajran ka helayna adduunyada waa ku liibaanayna hadii maanta reer Muqdisho kaliya ay qaataan in qof dilay aan diya laga dhiibin oo kawaanka la geeyo la dilo والله يقول بالله تعالى سدح بلد جود مقالة مقدسة أماني نقونيسا قف قري وطانا الأركي ماي لكن أضيع الرقمية وحي كم عاشايان أي شاتي يكوفي دو سوحرتين هي بالباقي قف دلي ما أنت العقل على سؤال ورجعنا ستدير هيرك آوي إلك آوي qaarkood waxa ba jiray bil kasta $10 soo tuuray ku leeyihiin askariga oo shaqeynaa bil $10 soo tuur maxaa dhacday qalaana la iska raba beriyad wax dilaysa ama lagu dila war maxay taa dilka yaa noo qoray yaa noo haya dilka walaalayaal si nabad loo helo ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaa si nabad aan u helno bash barwaaqo u helno ummadda ay nabad ugu joogto hal arin bis naga xigto qofkii qof dilo in la dilo oo uusan diyan lagu raadin oo dhaqameedna u doodin oo dhaqameed yaad u doodaysaa ma nin dila u dooday maya ehelkayga aha wiilkayga aha xabsiga yaa liiga geynin war hada ilaahay amarkiis aan qaadano ya ataawanu ala albirri wattaqwa aan qaadano ala kacabsi aan isku taageerno laakiin hadii nin dulmana waaba gaaygaayga reerka oo leeyahay odayaalka nin shan soo dilay odidii ka bixi diyaar u ah ganacsatada bil walba lacag u tuuraysa ilaa ninka yaaway gacan ku dhiigle dara ninka dilay wax igu dhagan lacagta iga raba war gacan ku dhiigle ilaahay agtiisna qiimo kuma laha diinteena sharaf iyo cirdi iyo qiimo kuma laha gacan ku dhiigle yaa la difaacanin gacan ku dhiigle yaa diya laga dhiibin diyo waxa laga dhiibi karaa qofka shilow mooto ku galay gaariyo ku dilay bareego gooste gaarigi waa garawshiyo leeyahay laakiin nin qori soo qaatay 12 ficil soo maray qoriga nin ku taagay ee xabadii ka baxshay dilay walaal garawshi male gacan ku dhiigle bulshada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa war heedaha adeer awoowe aabe nabadoon war nin dilay ha u doodin ninka doonin qof dilo hala dilo hadii intaas la helo magaalada Muqdisho toban bari gudood amaanay noqonaysa marka fariinteena ha ahaato qof dilay waa dilid hadii uusan ahayn shil baawur kama ahayn wiish uu waday ku dumin dhagax uu waday oo uu kor u waday wiish u saarna ku dhicin waxyaaba
dembiga muxuu kala baxaa wuxuu kala baxaa kas kama kas dhaaf kas ninkii wax ku dilow leeyahay waxyaabaha ilaahay ka soo hadlay waa ogol yahay diida ilaahay in la dhiibo subhanahu wa ta'ala laakiin waxa ka horeey an-nafsu bin-nafsi ka horeeyay diyo fasiraaday rabtaa an-nafsu bin-nafsi aan fulin la'nahay maxaan diyo dhiibnaa ninkii nafti naf gooysa hal la gooyo ayadana marka ayada la gooyo hal is weydiiyo tee marka in la dhaafo mudan waxa in la dhaafo mudan mid shil geeyso mid kama ku dhinto ama kas dhaaf ku dhaco kas dhaaf waxa la lahaa xabad aad cadow u waday oo nin cadow ah dad dilay u jeeda u waday intii cadowga ku dhacday ka dhaxbaxdo mid kale oo walaalka ay dhibaatayso taasna waa kas dhaaf ilaan xabada dhinaciisa u foganeed dhinaciisa u waday laakiin hadii qof dilay nooc doona ha noqdo walaalka ha noqdo saaxiibka ha noqdo qof naftiisa kas u gooyay walaal waa dil asagana maanta ma joogto Soomaaliya meesha diil iska dhiibi jiray sababtoo diil hadii la dhiibo bari oo nin soo dila waxaan haynaa nin 7 mar diil laga dhiibay waxaan haynaa nin 9 jeer diil laga dhiibay wixii waaba qabatiimay inuu dadka laayo يا u baneeyay marka inuu dadka baabi'iyo u baneeyay qabiil iyo waxa u baneeyay qola rabta inay ku adeegato odayaalaba koofiyad u soo xirta u fadhiya biibitooyinkii meelaha maanta tolkiya yaa qof dilay mise la dilay hadii aad qof dilo maanta ama aan la dilo diyada markay qaataan xitaa ilmahay kuma faa'iideeyaan diyadii ay qaateen ilmeyga meel ay tuugsanayaan wixii diya laga qaatan ayaga kala qaybsanay diya intay qaadan lahaayeen waxa u roon inay yiraahdaan qofkii dilay hanoo dilo waana daawoway nabadna way dhala doontaa insha Allah ummadda Soomaaliyeed waxaan ku baraarujinaa walaal hadii qof laga dilo meesha diya ka qaadan lahayd halii dilo dheh waxa ku badbaadaya arintaas go'aankaas ay qaato waxa ku badbaadaya 20 qof oo Soomaaliyeed oo sidaad oo kale loo dili lahaa waana mahadsantiin